بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيال كسر دوادة برنامج كندب كهذا وأنا قلب كني مركل كويجي دون بهدلات يباب كأي شركة إثيوبيان إيرلاين كوهاي صدق كصوماليات إنه شلنا ورئيسي كهذا الله يعرين تاسع المانتنا إسلام موضوع عاسي أنفيرين دونا وحارمها سيسيدو وكور قلي وريا نور أو بعدتان نقطة دير كوسو سميي إسلام مركزنا إنه سؤالك ويدين دون نور سودو شركة إثيوبيان إيرلاين تكور قوني يا لشيء إن دتك الصومالية كويس شلنا وكيا إنه ورئيسي موادن كصومالية إنه كوريسنيني وكجهل اللي يعرمها سي محا عصب ساكن بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ما أذكر دتك الصومالية والسلام يا ملك استوى جوجان أنت كدب قولوا أرنتش إثيوبيان إيرلاين maalmihii horta ugu dambeeyayba ama bilihii ugu dambeeyayba cabashadu waa soo baxaysay inkasta oo ayna inaguna si aad ugu sii kuur galin laakiin shalay markii aan wareysiga ka qaadnay muwaadinkii qurba joogta ahaa Maxamuud Cali oo magaalada Jigjiga ku sugan isla markaasina sheegay in dhibaatooyin xoogan oo marar kala duwan iyo sanado kala duwan uu kala kulmay diyaaraddaas Ethiopian Airlines waxa nala soo xiriiray dad aad u fara badan oo daafaha caalamka kala jooga oo qaarkood qurbaha ku maqan yihiin oo qaarkood Soomaaliya gudaheeda joogan oo qaar kale ay deegaanka Soomaalida joogan oo qaar ay Somaliland joogan oo aad u badan baa nala soo xiriiray waxa ay ka wada makhraati kaceen dhibaatada shirkadaasi ay ku hayso dadka Soomaaliyeed waxa ay si cad hoosta uga xariiqeen inuu waxa uu sheegay Maxamuud Cali boqolkiiba boqol ay wax run oo jira ay yihiin dadka nala soo xiriiray qaar ba xataa Nairobi ku sugan oo maaragtay safar ay Nairobi kaga tageen oo Addis Ababa ay ku tageen oo Jigjiga ay ugu sii socdeen alaabooyinkii ay wateen ee boorsooyinkooda ku jiray qaar laga qaatay qaar ay maaragtay noqotay inay iibiyaan oo mar kale ay iibiyaan horta shirkaddan Ethiopian Airlines marka aad soo raacayso ee qurbaha tusaale aad joogto qiimaha tigidhka aad iyada ku raacayso iyo qiimaha tigidhka aad ku raacayso shirkadaha kale ee diyaaradaha kale ee laga yaabo inay ama Ethiopia yimaadaan ama ay meel kale oo maaragtay geeska Afrika ay tagaan waa laba jibaar tusaale hadda diyaaradda Turkish Airways ku soo raacaysay $800 oo Mareykanka jooga Ethiopian Airlines waxaad ku raacaysaa $1800 waa double way wali ka badan tahay double تيجي كورت ساسي كليه أو يوقع لسنتها أو مر والبا قفك لقيا أبو إنه ديارة ده مشدد بقول كسر راعة وكون يلا بقول كسر راعة تنكل تنهضت كسر راعي له تكون يشان بقول تاكل واحد راعي سلا بكون يشان بقول ساسي بأكل دوين هدي سدد بقول تنكل كسر راعي له تن وين كسر راعة تكون يسدد مركورت تقييمهم مر والبا دبل أو أرنتا صورته ويجرتها oo maaragtay ay ka qaalisan tahay inay maaragtay diyaaradaha kale waxa kale oo iyadana jirta dadka Soomaaliyeed qofka Soomaaliba haday u gartaan ama Yurub ka yimaado ama Mareykan ka yimaado ama Canada ka yimaado ama Australia ka yimaado ama Afrika qaybaheeda kala duwan ha ka tagay qofka Soomaaliga ee Ethiopian Airlines soo raaca khasab waa in fira gaar loo lahaado marka ma wax gooni ah laga baaraya oo lagu tuhmaya oo argagixiso oo kala wax argagixiso laga baaraya ma jiro kaliya waxa laga waxaynay waxa weey in hantidiisa la dhaco isagana la bahdilo inta kaliya weey qofkii waa bahdilayaan si fiican oo lama hadlayaan wax maaragtay la fahmo uma sheegayaan hantidiisii iyo baagagiisii iyo boorsadooyinkii uu watayna airportka lagu la haraya oo dhowr bari bay halka ku haysanayaan qofka ay ugu roon yihiin ay asxaanka u sameeyaan ee waliba ay u dadaalaan waa qofka inta u yeeraan ay yiraahdaan alaabtaadan waa inaad Addis Ababa markuu yimaado waa Addis Ababa gudaheeda meesha ugu yeerayaan waa inay yiraahdaan alaabta soo adiga maliid qiimaha bixi tusaale shay laga yaabo in uu kugu fadhiyay $500 ayaa waxa lagu oranayaa $800 ka bixi oo isaga waxaan soo bixinin kawada soo bixin ma aha waliba lacag ba dheer inta ka soo bixisay markii $800 ma ba ka soo bixin Sooma meesha ka kanti ku cid idinku celiyo hadaan tiraahdan xagee ku celinayaan
وبصير ربيع خلاص بمية وبصير ربيع ويقادنا يعني وين هذيك عليا بس أفضل كنت هذا ما بلبا ما بكون علنا يعني وهذا هذا هو العقل أنا قدر أروح أنا كسب بحين ها العقل قدر وحيكون خصبنا نيسا شيء إن تسيسو إن العقل تي أتكسب بحيث العقل بدل مركز هذا ندي بوسي يبيسو إيو إن ما ركتي وحكي لكم بنا أنا ماله مش ما ميجريشن ما بس جناح سكفرة فيري وحلك اللي فهم لا يهيب dadka dhibaatadan geysanaya migration-ki iyo diyaaradda Ethiopian Airlines shaqaalaheedii iyo maaragtay mas'uuliyiinteedii waxan ma isla wada ogyihiin mararka qaar migration-ki baa dhibka ku geysanaya sida la sheegayo mararka qaar diyaaradii baa dhibka ku geysanaysa airport-ka marka tagto dadka qaar waxay leeyihiin waxan haysta dhibaatada noo geysanaya waa migration-ki qaar waxay leeyihiin ma waa diyaaradii laakiin boqolkiiba 90 dadka dhibaya ee xoolahooda dhacaya ee Soomaalida bahdilaya ee sida rabaan ka yeelaya waxa weeye waa diyaaradda iyo shaqaalaheeda waa Ethiopian Airlines mar walba waxa ay fiiro gaar u leedahay oo si gaar ah ay ula tacaamulaysaa dadka Soomaalida baagaaga haddii ay ku jireen alaab maaragtay cusub oo qaarkoodna qaali yihiin horta kaamarad iyo wax la xiriiriyada horta hadalka daa lagaalama hadlayo ka hadal male hadduu ama wuxuu kaamarad yahay ama alaabo kale yahay oo maaragtay elektrooniga sida telefoonada qaaliga iyo waxyaabaha inta badan Soomaalidu iPhone iyo waxyaabaha isu dardartaa moogtahay waxyaabaha telefoonada qaaliga hadduu wuxuu yahay ka hadal male haddii laakiin wuxuu yahay maaragtay dhar oo kaleeti iyo waxyaabahaas waxa laga yaabaa in lagaala niqaasho lagu yiraahdo maaragtay intaas oo lacag bixi oo kolka horena aad tigid ka soo bixiso aad sabab marka timaadana aad lacag dheer ka bixiso haddana iyadoo sidaa tahay inay ku badbaadi waayaan oo jigjiga marka tagto ama boorsada faariqa lagu keeno ama lagu keeno maaragtay aad weydaba gabigeediba oo saad u raadinaysa airport ku taagan tahay laga yaabo 10 bari ama dhowr iyo 10 bari kadib in aad ama iska samirto ama aad maaragtay iyadoo alaabti kugu jirta inuu kugu jirin meesha la keeno marka dhibaatadaas dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan way ka maqraati kaceen Nairobi hadda waxa xalay risiiday soo diray risiidadii uu ku iibiyay nin odaya oo maaragtay wiilkiisu halkan alaab ka qaaday oo alaabtu qaad dadka Soomaaliyeed moogtay waxyaabo isu sii dhiibaan telefoonada iyo waxba la isugu dhiibay alaabada yar yareed ee la isugu dhiibay loo dhiibay ad sabab lagu qabsaday oo la yiri lacagta ka soo lacagti halkan Nairobi ay ku fadhiday lacag la jibaarkeeda ku fadhiya marka halka tagay la yiri waa inaad ka bixisaan lacag inta inta dhan marka lacagtan magaca loo bixinay maxay tahay ma meesha dukaan wax ka iibsanayaba shiido baleer leen baa la weydiin magacaas lacagta uu ka soo bixiyay shaygaas lacag ka badan mar walba waa inaad ka bixiso marka aad sabab tagto oo wixii waa in lagu furto haddana iyadoo sidaa tahay waxa laga yaabaa inaadan nabad galin haddana wixii airport-ka lagu sii qaato telefoonadii hadda waxa laga yaabaa markay tahay qofka ama mid ayana oo wata maaragtay taas inta badan lagu ridaa moogtahay ee baagal dhabarka lagu qaato ee kuwa waaweyn ee cargo-ga raacaya maba la saaraba marka waxa dhibkaas aad ka maraysa waa tii yareed gacanta ku wadatay kuwa waaweynaa iyaga iska daa xagga ugu jiraan kuwa waaweynaa ee cargo-ga la saaray iyaga maba arkay sidoo xagga dambe ugu jiraan farti la rabaa laga qorayaa intii la rabaa la haysanaya wixii la rabaa laga baxaya sidii la rabaa loo sameeynaya kadib ama qolofkeeda helaysa ama waayaysa arrintii odaygu uu sheegay ahayd in marka aad cabasho geysato kuwii ku dhacay haddana cabasho u geysato inay ku oranayaan boorsadaada meeqa shay baa ku jirtay xageed ka soo gaday shirkadee samaysay qiimaheed ka soo bixisay waraad baagaad islii ka soo adeegatay suuqeedan oo aad alaabooyin ku jira kala soo baxday alaabooyin maaragtay aad ku soo guratay kala duwan oo garamaan iyo shaatiye iyo diracye iyo laga yaabo inaad kabi iyo inaad wax ku soo guratay adama ku xisaabsan yihiin waxaad ku soo gurtay maya marka bidantooda arko ma garan shirkadda samaysay shaatiga aad ka soo iibsatay suuqa islii ma garanaysa aad shirkad samaysay oo fiirsan kan hada xidhanay ma garanaysa marka waxa weeye dhibaatadaas oo aan mar iyo laba iyo saddex iyo afar toon ahayn ee dhibaato soo noqnoqotay oo dhibaato joogta ayay shirkadda Ethiopian Airlines ku haysaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo joogan xalay waxa ay la soo hadlay ninku sugan garowe waxa uu leeyahay
boorsooyinkayga 15 beri sidaan u raadinayay markii dambe markay indhahu ay casaadeen ee alaabtiina waayay boorsooyinkii bidhoodiina waayay wax ila hadlo oo iga qanciya oo hatta apologies ka bixiyana aan waayay ama raaligelin ka bixiya yaan lafay kala cad adisaba ku sugnaa alaabtiisina meel alla meel ay ku dhibaqday ma jigjigu tagay macnaha jigjigu ku degay oo alaabta de moogtay marka hore waa inaad jigjigaan ka qaadanaya baad leedahay boorsooyinka marka boorsooyinka jigjigaan ka qaadanaya adisaba lagula hadhaya gebigoodiiba markaad soo noqotay tirahdo war see wuxuu jiraan cid ku qancisa xataa ma helaysa marka qofka lagu royo marka lagu leeyahay sheeg waxa kugu jiray iyo waxay ka koobnaayeen iyo waxa loo yahay wada inaad waxa ka jawaabi karin way nuuro markaad fiiriso dadka Soomaaliyeed diyaarad kasta Ethiopian Airlines waa dadka ugu badan ee raaca markaad fiiriso geeska Afrika meelahan la isaga goosho dhibaatooyinkana way ku qabaan maxay ku doorbidayaan oo ay weli waxay ku doorbidayaan oo Ilaahay abuuray oo lagu sheegi karo macna lima jiro waliba tigidhka guleeda waxa xusuusin mudan tigidhka waxa qaalisan Ethiopian Airlines diyaaradaha kale caadiga tusaale haddaad 1800 ku soo raaci lahayd haddaad 800 ku raaci lahayd diyaarad Turkish Airways oo kale tusaale waxaad maaragtay Ethiopian Airlines ku raacaysaa 1800 way ka qaalisan Ethiopian Airlines haddaad 1500 diyaarad kale ku raaci lahayd tan 2500 baad ku raacaysaa Ethiopian mar walba tigidhka waxa qaalisan Ethiopia marka wax loogu xilanayo oo ay dadka Soomaaliyeed hadee waxay ugu xilanayaan alaabteeda jigjigaan ka qaadanaya ayay jigjigaadu soo socotaa boqolkiibana hal ma dhanna dadka ay alaabtooda u badbaado iyaga oo sidii ay ku soo yimideen ay ku soo talagaleen ay alaabtooda jigjigo u gaarto boqolkiiba hal way haday ugu badayna dadka loo yeeriyeen marka waxa way wax loogu xilanayo oo inta ahayn ma jirto diyaarado badan oo kala yimaada Ethiopia kuwa badan oo waxa laga yaabaa diyaaradahaasi ma tagaan jigjiga ma tagaan oo diyaaradaha kale aad sabay ku eegayeen tan laakiin waxay ku geynaysaa alaabtaada iyo boorsooyinkaagi jigjiga laga yaabaa inay ku geyso hadii ay ka badbaado marka laakiin waxa meesha taal ma badbaadaya haday ay badbaadaynin waxa ku dhaanta adigoo inta diyaarad kale soo raacdo marka aad sabab timaado alaabtaada aad la wada degto ayar ticket kala goosto jigjiga u sii bax marka haddaad Ethiopian Airlines soo raacdo alaabtaadu waa TC gooniya loo eego waa TC gooniya loo baarto waa TC gooniya loo faquuqo waa TC gooniya loo dhaco hantidaadii iyo wixii aad meesha ku wadatay electronic haduu yahay iyada ka hadal male san horeba kugu sheegay hadii shay cusub oo qaali ay u maleeyaan uu yahay iyadana ka hadal male wixiiba ama way qaadanayaan ama marka ugu yar yihiin ay ku naxariistaan waxay ku dul saarayaan lacagtii uu kugu fadhiyay lacag ka badan oo magac ay leedahay aadan garanayn oo cid qaadanaysa aadan garanayn oo macna loo sameeynaya aadan garanayn oo bixi ama bixi ah hadii aadan bixinin Soomaa halkan ka cili alaabtan barta kala noqo marka waxa weeye niyahu dhibaato badan bay shirkadaasi iyo dadka ku haysa cabashooyin badan oo aan mid iyo 2 iyo 3 toon ahayn bana soo gaaray mas'uuliyiinta deegaanka Soomaalida iyaga laftooda dadku waxa ay inta badan sheegayaan hadii ay cabasho xataa u gudbin lahaayeen ama waxa ka qabtaan ama ka qaban waayeen in aan iyagina helitaankoodii uu mararka qaar iska adag yahay marka mas'uuliyiinta deegaanka waxaan ugu baaqaynaa dhibaatadan dadka ku dhacaysa wadada iyagu ka mas'uuliyiin shirkadda Ethiopian Airlines ama waxa ka qabtaan ama ka qaban waayaan laakiin inay dadka la fariistaan oo ay qanciyaan oo ay xataa bal dacwoodaan xataa wax weyn oo ay yiraahdaan bal wasiiri intii lagu daray la yiraahdo bal xafiiska shirkadda waa in la tago hal laga wardoono oo xataa su'aalo laga weydiiyo ilaa jigjiga xafiiska ku leeyihiin su'aalo laga weydiiyo oo lagu amray in la keeno alaabta dadkan ay lahaayeen oo lagu amray inaan maaragtay aysan Ethiopian Airlines aysan dadka Soomaaliyeed aysan indha gaar u yeelan karin marka waxa weeye hatta waxay ku leeyihiin diyaaradda marka aad gudaheeda aad raacayso aad la socoto hatta kuraasta muhiimka ah mar qofka Soomaaliga kii loo dhigay raaxi xagga dambe ahay meelaha dambe iyo meel maaragtay aan yar hagaagsaneyn baa la geeyaa وحتى كراستا هراء مارتي فيعن حتى ولو ما جرى بودي بس كمرة الوسينة وحال الوسينة يا سيد هذا فهم إنه ماله دنبا
marka waxa weeye dhibaato badan binayo shirkadaasi ay ku haysaa baaritaanana waa wadnaa oo kulli xogeyn intaas ka badan soo bandhigi doona way aad baad mahadsantahay saaxiibka nuur daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaynu kusoo gabagabayno qodobkan intaynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waxaan idinkaga sii tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu